golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu maanta yeeshay kulankiisa caadiga ahaa arrimaha golaha wasiiradu ay ka wada hadleen maanta waxa ku jiray falkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay Jubbada Hoose ciidamo uu soo abaabulay eedeysane Axmed Maxamed Islaam ay ku weerareen ciidan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolkaas u joogay in ay kala wareegaan fariisimo ay baneeyeen ciidanka ADMIS haddaba golaha wasiiradu marka uu darsay falkaas waxa uu si adag u cambaareeyay weerarkaas qayb mas'uulnimada ah eedeysane Axmed Madoobe uu ku soo qaaday ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxa uu falkaasi ahaa runtii mid aad iyo aad looga xumaado oo aan la filaynin waxaana ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo halkaas loo geeyay in ay kala wareegaan ADMIS goobaha ay baneeyeen isla markaana kaliya ay amar u qabaan in ay iska difaacaan wixii weerar ah ee uga yimaado khawaarijta markii dambe la amray in ay goobtaas muxuu ahaa ka baxaan maadaama aanay qabin amar ay kula dagaalamaan wiilasha kale ee walaalahooda ee laga hor keenay marka golaha wasiiradu waxay falkaas u arkeen mid aad iyo aad u foolxun si aad iyo aad ay u cambaareeyeen waxaana xigi doona insha Allah taala oo ka dhalan doona cawaaqib iyo isla xisaabtan waxa kale oo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedeysane Axmed Madoobe weerarkaas si gaar ah in ay u suurto galiyeen in gaadiid badan oo dagaal oo ka yimid magaalada Kismaayo oo goobtaas gaaro goobtaas sida loo yahay 270 kilomitir wax ka badan ayay u jirtaa magaalada Kismaayo dhul badan oo khawaarijtu ay joogto ayaa ay soo dhaxmareen ciidamadii goobtaas weeraray arintaas oo runtii arin aad iyo aad khatarteeda u leh arin xoojinaysa shakiga hore looga qabay in muxuu ahaa eedeysanahaas iyo khawaarijta ay xiriir gaar ah ka dhaxeeyaan sidaas daraadeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arintaas warbixin dhameystiran oo faahfaahsan ka keena muxuu ahaa nooca xiriir iyo sida ay ku suurto gashay arintaas inay dhacdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin